qaar ka tirsan shacabka ku nool gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay khilaafka xooggan iminka soo kala dhaxgalay horjoogayaasha iyo sidoo kale maleeshiyaadka qawaariijta gobolka dhacaya al-shabaab ee lagu itaal roonaaday dagaalka ka socda gobolada dalka. Qaar ka tirsan shacabka ku nool magaalada Wisil iyo maamulka oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay khilaafka xooggan iminka ka dhex aloosan maleeshiyaadka qawaariijta gobolka dhacaya al-shabaab. Waxa sidaas oo kale ay soo dhaweeyeen go'aanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee ku aadanaa bilowga wejiga labaad ee ciribtirka qawaariijta gobolka dhacaya al-shabaab oo la filayo in dalka ka bilowdo dhawaan. nimankan qawaariijta ah sida aad dareemaysaanba diin horta meesha ma aysan imaanin. dadka waxay ku xukumayaan diin ma ahan, waxay ku xukumayaan wadana ay u gaar ah ay ka dhex arkeen. waxaana hogaaminaya niman dambiilayaal ah oo dawladahoodii iyo deegaankoodii dadkoodii dambi ka soo galay ee Soomaaliya ku dhuumanaya oo ka dhigtay hul ay ku dhuntaan Soomaaliya. nimankaas ayaka ah horta sida hore baa u sheegay dawladdu gacan bir ay ku qabanaysaa shabaabna dhexdiisa waxaan u maleynayaa markaan ayaga laftigooda waji iyo sumcad uma taalo, laakiin kuwa dalka u dhashay ayaa waxa la rabaa sidii ay u kala dhow yihiin dawladda inay soo kala dhaweyso oo ay maaragtay u fidiso si dawladda ay gacan saar ula yeelato xogta shabaab oo ay u hesho oo ay u sahlanaato. raxiim anigoo ah Nuur Jaamac Maxamed waxaan meeshan ka cadeynayaa aragtida dawladda markii la yiri shabaab ayaa laba isku qabtay dawladduna ay go'aan ka qaadatay in laga cirib gooyo ummadda dhexdeeda. waxaan soo dhaweynayaa go'aanka dawladda waxaanan ummadda ku boorinayaa in si degdeg ah ummadda dhexdeeda iyo waxa weeye dalka iyo dadkaba looga qabto al-shabaab lagana cirib gooyo. yaan soo dhaweynayaa intii qaadatana waa ku mahadsan tahay, inta diidanina waxaan leeyahay aragtidaasi waa mid ummadda iyo dadka anfacaysa ee soo dhaweyso. intaasaan waxa weeye aniguna ku boorinaya ku soo dhaweynaya. su'aasha ay weydiisay haddaan isku dayo waxaan dhihi karaa khilaafka soo kala dhaxgalay kooxaha nabadiidka ee ku dagaalamaya Soomaaliya ka dagaalamaya dawladdu waxay uga faa'iideysan kartaa aan qabaa laba option ama laba waji. wejiga koowaad waxaan leeyahay dawladdu haddii dagaalka la wajib baarto oo wejiga labaad ay ku baaqday dagaalka ay xoojiso chance ma u heli karaan nimanka nabadiidka inay khilaafkooda xalistaan u heli karaan. waxay danta ku qasbaysaa inay soo dhiibaan dadka ajaanibtaan ay kala cararaan bay danta ku qasbaysaa ama la laayo. dawladda waxaan u baaqaynaa inay dagaalka la wajib baarto oo dagaalka aan nafis la siin niman si maaragtay ay waxa weeye lagu ciriiriyo maaragtay dagaalka lagu xoojiyo oo la saaro. talabaad waxaan dhihi karaa looga faa'iideysan karo waxay tahay sababtoo ah waxa weeye dad badan waxa la arkay soo dhiibay marka cafiska loo fidiyay oo ka faa'iideystay. waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Soomaalida cafis oo waxa weeye intooda suurtagal ay tahay cafiska u fidiyay si maaragtay dhibaatada ay ku jiraan iyo dhibkan iyo maaragtay goodkan ay ku jiraan uga soo baxaan ugana faa'iideystaan cafiska dawladdu sheegtay. nimankan nabadiidkana oo ajaanibtana waxaan leenahay dagaalka lagu sii wado si dalkan uga baxaan. Baasha Cali Xaashi, warbaahinta qaranka, Wisil.